السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغارت شرفت لك سو دhowaada YouTube page-keena. Cawada waxaa isla falanqeyn doonaa kulankii wax yar ka hor ku soo idlaada guriga kooxda Man United. Kulankaas oo kooxda Tottenham ay ku dubatay kooxda Man United 3-0. Man United waxa weeye weli habaarka oo ku socdaa. Waxa waaye waxaan haysto niyo anaga musiibaan haysto meelay naga haysatana ma naqaan. Waaba inkaaranahay. Tottenham hadda maanta waxa is dhahay kooxda Man United maadaama kulankii Crystal Palace lagu soo dhigay kulanka boorka iska jafi doontaa, laakiin waxaa dhacday in Tottenham ay 3-0 ugu badasho kooxda Man United oo 20 daqiiqo ugu horeysay ciyaarta afkaan biida hore horta laga naxsadaba. Tottenham wuxuu ku soo gashay dagaal iyo qajajac iyo banooni laga dafaa isla markii dhac laba banooni la isku dhufsanayo aaba lagu soo gashay 3 daqiiqo markay maraysa waan laga naxsadaba hal gool wash. United maxaa ku taqaanaa hal gool hadii laga dhaliyo waa isku dhaxyaace waa niyad jabay ciyaartooyda waxa waaye madaxay raaracinayaan. Waxa waaye 3 daqiiqo iyadoo maraysa si gool laga dhalina koox weyn ahayn u sheeganay macna halkan kulan bis maaha kulankii Liverpool waa xasuustaa saan kale 10 daqiiqo ugu horeysa Man United dabada aan xiranno maba naqaanago gool aan loogana koox weyn baa u baxno 10 daqiiqo ugu horeysa waxa waajib inuu gool laga hesho 3 minutes waxa soo daafaciyaha soo gaatay Martinez, Delight, Mazraoui iyo Dalot ku dhilo iyo Onana dif opportunity 3 minutes gool laga dhalin waxaa dhahna ma naqaane 3 daqiiqo ciyaarta markay maraysa gool hadii laga dhaliyo niyad jabay bilaabeen kooxda Man United nin walba inuu macnaha oo xanaaq ku dhiilo bilaabay isla markiiba Bruno Fernandes labadii kulan hore ku filnaaweysay kulankii FC20 iyo kulankii Crystal Palace ku filnaaweysay oo banoonida qalqalday caaw muxuu gaaray wuxuu yiri banoon la qalqaldaa bis enough ma oo baxay caaw xariif oo maqas u kacay inkastoo maqas wax roos lagu qaato uusan ahayn indhaha la yiri 42 daqiiqo ciyaarta iyadoo marayso oo wali oo la isdhaa United rajada hal gool way keeni doontaa roos indhaha la yiri Bruno ma sugay mar hadii oo Bruno macnaha oo Bruno qalday kulamadii Crystal Palace iyo oo wuxuu sameyn kara sameey oo waxa la leeyahay ninka ugu shuudadka badan waay macnaha waxa la inta shuud u riday iyo sidoo gool u dhalin isma laha statistics oo gal doona horta 42 daqiiqo markii maraysay markii Bruno Fernandes roos la sii macna Ten Hag caadi isugu dhaxyaa wax uu sameeyo garwaay bedelo sameeyay bedelada waxa Mason Mount iyo waxba soo gashtay Mayono waa ka dhaawacmay waashu toos u qasmatay Mayono markuu dhaawacmay Mason Mount la soo geliyay asagana waxba tir waayo xitaa markii ciyaarta dhamaadkeeda saxta dhaawac ku baxay Mason Mount la keenay oo hadda hal bil dhaawac ku maqnay ciyaarta dhamaadkeeda dana mar labaad dhaawac ku baxay wuxuu faa'iido marka cunugii yaraa Kobe Mayono waa dhaawacmay cunugaas waa inuu dhaawac ku socdo waa sababtoo ah da'diisa intee la eg tahay lafiisa lafo macnaha oo qaangaaray ma ahan iyo sida loo safay isma balaabo Mayono waa dhaawacmay Mason Mount waa dhaawacmay Bruno Rosso qaba Ten Hag adeeg ku taala kulamaha soo socda Premier League sa ku dhil doonta adeeg ku taala Aston Villa ku balansan FC Porto Europa League ku balansan FC Porto qad jacdarta ku dhilbay laakiin Aston Villa meesha ka mar leedahay iska raba Crystal Palace iyo ku dhagayeen anyway waxa waaye horta albitrahan baabah nooga dhigay jaal iyo Rosso Mazraoui ma qof jaalisi Mazraoui Dalot Martinez Ugarte kulli jaalo ka saf marka waxa waaye nimankan 47 daqiiqo markii maraysaybo waxa gool labaad dhashteen hadana 70 gool saddexaad dhashteen ciyaartii waxay noqotay maxaa ii diibatay 6 kulan la dheelay 6 gool waxaan laba kulan looga dhaliyay gurigeen Old Trafford 6 kulan Premier League la dheelay 3 kulan waxa ku dheelay gurigeena hal gool dhalna bas 6 gool aan lagu Tottenham 3 gool Liverpool 3 gool Ten Hag soo raba inuu ku joogo anyway ciyaarta markay meesha maraysay waxa waaye horta shuudka waxay ugu rideen nimankaas 24 shuud ay ugu rideen waxa waaye waa gaala godkii ugu jiray garoonka Canada maqla jirtay saas ay ugu sameeyeen 24 shuud ay ugu rideen oo 10 shuud kamid ah on target anaga laba jeer xasuustaa bas aan birta ku dhufan Onana wallahi Onana haba useless haba iska aaday wax matara haba iska aaday caaw ciyaartu waxay istaahishay 5 gool 6 gool inay ku dhamaato haddoosan Onana ahaan lahayn 5 gool iyo 6 gool ku dhamaan leed iyo ka badan ay ku dhamaan leed 3 Everton ba Onana ka shaqeeyay inay ku dhamaato maana ceeb ka weyn aba dhici lahayd caaw 7 Liverpool naga dhali jirtay aaba ka dhici rabto marka waxa waaye Bruno baa laga haystaa oo positionka mar waxa xasuustaa soo marayo 70 iyo 30 soo kala marayo xasuustaa ay Bruno uu dhahay macna Ten Hag kubada la haysana Bruno soo dhisayna la dhahay
والله أفكار جوغ ذي هذا مقشت هو نكي ما ينو هاي داو عقوب حي ما سمعت داو عقوب حي برونو هدرتا ما بقى حين برت برونو نيو نكان كيت جلي أو فديسي بككروينه برونو راشفورد يونانا فديسي بككروينه ما هو waa qeyr waay inuu Bruno saddex kulan oo Premier League maqnaada ba qeyr noo eeg waa la arki doonaa barto in Bruno waxa laga sheegay taageerayaasha kooxda Man United ay dhahan mar walba ninkaan iyo Bruno siiso ku soo bilowday ilaa wax fiican sameeyay ninkaan kayd gili taageerayaasha ma macna warkooda sax noqon doona mase Ten Hag ku adkeysanaya ninkaan gar iyo gardarraba waa wadana dhahay warkiisa sax noqon doona hadda soo kala bixi ninkaan Rose ma qaadanaha kulanka Aston Villa iyo isheeg kulamo soo socdo waxa Bruno masafana saddex kulan soo socota Bruno masafana mabad markaas la kala arki doonaa United inay Bruno u darsanayso iyo inay macnaha ay ka raysanayso hada meesha ugu gudubno Bruno Fernandes waxa uu leeyahay 17 shuud oo gaban leeyahay Premier League oo bilowday 60 kulan 17 shuud oo hal xabo hal gool ma dhalan ay diyeesho miyaa nooba miyaa lama kala yaqaan nooba loogu talagalay inuu shuud ninkan diyeesho kubad inuu dhisaa loogu talagalay ma sameeyna marka niyow Ten Hag waxa markii ciyaarta dhamaataan la wareystay niga Ten Hag alla in lagu buriyo oo kooxda laga roqsay ma ka baqay aniga ma anisa leega burna aniga kula nimanka waa balanay waxa ku balanay ilaa seasonka dhamaanayo in mideysnaano isku mid ahaano hal go'aan wada qaadano guul iyo guul darrabo asla joogno aku balano kula waaba nin oo macnaha riyo ku jiro kulanka sadii leega raay xitaa kula seasonka ku dhamaana ma le burna January in le buri iska badaa kula waaba nin kalsooni isku qabo niga marka anu ay sheegay hore Janaayo Ten Hag anu waa taageersanay inuu joogo waa taageersanay laakiin ninkan wax uu ahaa ilaa abuurtay waraa kulan kasto kooxa aan la dheeleyno hal ciyaaryahan kamid ah wuxuu soo maraa soo dhaxmaraa afar ciyaaryahan shan ciyaaryahan intuu soo dhaxmaro kubad soo dhax qaato goolna laga dhalnaa ilaahay kugu dheeri wax suurta galaamaya kulankii hore waa ogeed kulanka hadda FC20 goolka barajada laga dhelinaa waa ogeed hal nin ayaga dhan soo dhaxmaray ilaahay Bruno ka qabsanay Eriksen mar labaad farta ka saar isla ninkii hadda cawad waa kana hal nin kulligood soo dhaxmaray ayuu fiirsanayaan Rashford iyo Garnacho iyo Dalot midkaan la dhahay kulligood ayuu fiirsanayaan soo dhaxmaray waa left back waa ninka Bruno soo dhaxmaray Ten Hag wuxuu tahay wax le Bruno ma laha meeshaan aniga waa ku kalsoonaa nimankan macna waa balanay saan waay waxa iga daranbo ayadoo ciyaartaas ku socoto Rose aqabno Mason Mount ma sida wax ma karo bedelkana naga dhamaad maxay noqotay daqiiqadii u dambeeyay in sagaal ciyaaryahan ay ku dhashay United oo adaaba goolal fara badan markaasna laga sii dhalin oonana ceebteen asturba cawd wareen United waxa waay laakiin anu waxaan la yaabay Premier League nimankan arbitrage ka waxa qabtay ma la ilaahay uu dhaariyo highlights ka fiirso Bruno Fernandes waxa roosada lagu sii waxa roosada la isku siimiya warjaalaha doo siilay macquul xitaa jaalam istahin asiga iyo ninka la leeyahay wuu jabshay asaa hor dhacayo labadooda asaaba garaafa gaar lahayd haday jug wax qof gaaris roosa indhaha la geli markii Premier League kulankii oo Arsenal iyo Man City waa ogeed Arsenal si loo nimanka uga reebeen Man City ayuu ka raay rabaan Premier League maalin kasta qalad ay galaan arbitrage oo Premier League joogo maalin kasta qalad ma maqleysid Spain oo laga cabanayo arbitre Talyaanigu arbitre laga cabanayo maqleysid Ingiriiska lacag lagu kala qaataa Soomaaliya raaxasni iga dhaafay hadda ka socdo waxa waay horta inuu roosadan marmarsi waa hadii si loo fiiriyo ciyaarta bilaaw koobaad ee nimankan kubadda naga haysteen mafad United inay ka kubad fiican yihiin inay ka firfircoon yihiin ee dhibcaha ayaga qaado doonaan ciyaarta bilaaw koobaad ee muuqatay anaga hadda fiiri roosada meeqa daqiiqo 42 daqiiqo markay maraysaa roosada qaadan 42 daqiiqo wixii ka horeeyay Tottenham ma fiicna anagoo sideen Bruno naga maqneen Tottenham naga fiicnad marka waxa waay hadii marka oo adoo ciyaartoyda ku joogto oo macnaha oo rooso qabin ee kooxdan ka fiicnad hadaa rooso qaatid maxaa ka filay macnaha asaasay oonana ciyaarta 5 iyo 6 ka badbaadiyay inay noqoto maahne oonana dus online oonana habeenadu eberka ay amal u dhaqmi lahaa boon ugu soo shudo iska dhal lahaa 5 iyo 6 ku dhamaan marka waxa waay mid kale ninkan Bruno leeyahay waxa waay seasonka dhan ay ka tiilay Roosa cawada bis ma ahan seasonkan dhan Bruno wax qabanayo ma arkin asoo assist sameeynayo asoo gool dhalinayo asoo Bruno si fiican u dheelaayo team kala dheelaayo mar walba boosas dheer oo macnaha oo risk oo hada ii toostana gool ay noqonay
haddii aan qaladnana waa difaacanayna oo mar walba dheelaa. Ten Hagna muxuu rabaa nimanka inay kubadda haystaan. Banooniga soo raba inuu Ten Hag u dheelo wuxuu dheeli kara Eriksen ka jiro. Bruno iyo macallin Ten Hag soo raba inuu u dheelo macallin Ten Hag iyo Bruno iyo Rashford maba iskeenayaan. Ten Hag hadduu Rashford iyo Bruno keed iska geli lahay oo niman kubadda ilaashanayo kubadda aan iska qasaarinayn garoonka soo gashan lahay maanta inuu waxtar lahayaa ba dhici karta. laakiin maxay kugu taalahay anyway marka waxaa ceeb noogu filan in hal ciyaaryahan intuu soo dhex maro afarta daafac macalaaqadkeena dhex soo dhex maro oo mar walba sas gool nooga dhaliya ceeb United intaas ugu filan. marka waxaa waxaa iga daran 6 kulan dheeli 6 kulan waxaa 3 kulan 3 ewer Liverpool kaaga baaso 3 ewer kale Tottenham kaaga baaso 14 dhibcood meel laga rabay 7 dhibcood dhumi already waxaa Premier League saana uga hartay top 4 saana uga hartay Europa League xitaa inuu soo bixin uma leeyahay bas aan waa rajaq dhigaba bas waa fahmaysa maxaa u jeedaa ilaa wax meeshaan oo rajaq dhig leeyahay u jeedaa anyway waxaa hadal badan hal buuxshe waxaa iiga sii daranbo Porto kulanka waxaa noogu xigay mataqaanaa FC Porto gurigeeda ugu tagaynaa Aston Villa gurigeeda ugu tagaynaa waxaa Ten Hag xaalad inay ku sii xumaato maahan xaalad meel uga fiicnaanayso ilaa sanadka cusub laga gaarayo oo la leeyahay Ten Hag waxaa stresska iyo jawiga waa ka degay uma jid hadda waa la baxa qaramada friendly-ga la aada خلاص xogaa uu niid soo dhisana labadaas maal waxa warbaahintii wax ma laga sheegayo falanqayaasha ma ka hadlayaan United iyo ciibteeda labadaas maal waxa shiba laga dhaal ka asbuuc waa la isku soo laabana Aston Villa ku siiyay dhash ay ku siinay hay meesheeda ka wado macna marka nimayo waa idin salaama ku dhaa meeshaan waa Ten Hag soo madax iyo xanuuji iyo Ma United warka sameero fiir markuu soo gala badal uu soo gal isla marka hore ku badda ka dhigtay maba Ingiriiska maba ka bixi karo una hortaniyo ciyaartooydan Real Madrid ka imaato markay Real ka tagayaan Talyaaniga iyo meelaha iska aadaan Turkiga iyo Sacuudiga iyo iska aadaan Premier League maxuu soo aadaan war Premier League kubad la isboobayo waa kubad orod la isaga tagayo waa kubad xoog la isaga tagayo waa meesha ma ka bixi kartaan waxay u barteen kubad aan la istaabanin oo baas lagu soconayo u barteen meesha wax iska ma jiraan niyow Casemiro arat Casemiro bedel aan usul gelina iyo Mason Mount ilaa hura ragga waa weynaay meel wax ka tar waayeen kuwaas maxay ka taraan marka niyow United waxa musiiba haysata ku dhig garabkaan oo ninkan Diego Dalot dhaana gool kasta oo United laga dhalinayo almost goolashana laga dhaliyo 80% Lucas Shaw booskiisa ay ka soo galaan oo Dalot hadda uu dheelo Lucas Shaw ana xasuusaba in kaar Allah ku riday 9 dhaawac ku maqay musiibada dhanba balaayada waxa dhanba noo keenay asiga waa Dalot markuu garabkiisa dheelay waa difaacda waa fiican yahay dhinacan kale ma lagi eberwa afkooru ku maqayaa nimankan jaamiga kubaddaasaan hadda goolkan markii la dhelinay ninkan kubaddaas wuu fiiri inta saddexna ka jirto Martinez iyo Delight iyo Mazraoui ka jira dhinacan uu fiiri wax taagan ma mid asal jira meesha ka taagan wuu baasti gool Dalot waa halkaas uu jira ma dhawo marka waxa waa inuu ilaahay khayr ka dhigay ku dhaa United khayr soo ma wade Ten Hagna khayr soo ma wade ama khayrka ku jira United inay Ten Hag iska burus hadda inta seasonka wali oo bilaaw yahay oo macnaha oo Premier League iyo top 4 asoo gali kartid oo koob kale iyo wax u dagaalami kartid hadda fan Nestor baash u dhiiba Erik Ten Hag maano meesha madaxa ku xanuunsaday bidaara ku gashay ka dhamaawniyo wassalaamu calaykum inta maanta dhan war ma wadayna niyow like share subscribe ta naga ilmaamina waxa waa xilli dambe oo video asoo duubayno maanta dhan war ma wadi karno marka waxa sameeyeen like share noo saara وأنا دي سلام هنا الفيديو أنت سوق إجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.